معك نور بدني شام بيدها يشو معك نور بدني شام بيدها شرلان أدو شرايو شاشان كساري منان شهودي شكري بواي شراب غلو إلى شان جعل كاشو شمي يسكورو شمي يا شمي شمي شنكر يكلاك مدرقا يا شمي يكلاك مدرقا يا شمي بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal meel kastood joogtaan waxaan joognaa magaalada Honafos gobolka Bishkroot ee dalkan Norway waxaana nasiib wanaag ii ahayd oo farxadna ii ah in aan halkan kula kulmay laashin ama abwaan Axmeddey Cabdi Gaashaan Axmeddey Cabdi Gaashaan marka hore ku soo dhawow TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisii Denmark oo magaaladan kugu timid ee Norway aad u mahadsan tahay Zahara Maxamed Cali gabadheena runtii ma ku ilaawi kari maanta oo gurigeyga ama meesha aan ku noolahay aad igu soo booqatay magaaladan Honafos aadan ugu faraxsanahay adiga iyo farsamayaqaanada iyo macal idaacada TV-ga STN oo dhan waa ku faraxsanahay salaanta aad igu timaadeen maanta ma sha Allah ma ilaawi karo Axmeddey Cabdi Gaashaan aad ayaanu anaguna ugu faraxsanahay kulankan aan kugula kulannay runtii waxa noo suurta galiyay dad walaalo ah oo ma aragtay magaalada Oslo nagu soo dhaweeyay aad ayaan ayagana ugu mahad celinayaa bal marka hore Axmeddey waxaan ognahay in qarxii tiyaatarka aad ku dhaawacantay bal xaaladaada caafimaad inooga waran alxamdulillah الحمد لله عافيماتك هذا بقول بقى لكن ورونا الحمد لله هذا دابو كنولان هاي إلهي ما تيسان أمر كيسان كنولا هاي دابو ينان قاتا الحمد لله هذا كنين يال يو دابوين يا أليسيها الحموافعين هذا عافيماتك مسك حديدي يو ديجي واحد سلم مالوافعنا ما شاء الله الحمد لله إلهي كوسياديو وكفر حسن هاي ودن كان نروي دقنت هاي نعم ما قصنا دقنته منوري waxaan deganay 6 sano aan deganahay 6 sanadood ayaan joogaa mar hore waxaan jiray gobol oo fog aan jiray waa leeyga keenay gobol Haatmarki leeyrahan soo maray adiga dhowr sano soo deganaa waa ka soo guuray hadda meesha Honafos aan deganaa oo Oslo hal sac u jirto waa tahay meeshaan aan ku noolahay waa tahay 6 sano degantahay magaalada Honafos bal ka waran luqadda Norway intaas kaftankii bilowgu ayuu ahaa waraysigeena aniga iyo Axmeddey Cabdi Gaashaan runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo ma aragtay geeyiga Soomaaliba nin laga yaqaanaya tahay nin hal abuur laha tahay riwaayadahaadii haddaan dadka qaar ama dadka dhalinyarada ah aan bisiray aniga kamid ah waxa ogaa in la igu qabsan doono waa yaraha markaan dhahan naftirkeyga inaan dadka xasuusinaa rabnaa maxaa nooga xasuusi kartaa riwaayadahaagi riwaayadahayga waa aniga 12 riwaayadoodaan sameeyay riwaayada Soomaaliga waxa Banaadir iyo waqooyiga la kala yiraa 12 oo riwaayada Banaadiraan sameeyay waxaana kamid jacaylkii luul iyo Leila u samir ama ka samir cudur iyo caashaqkii baa culus guur waa nasiib ee gacalka haboobin 15kii shumeey guurka maxaa gadaal u dhigay warbixintii jaceelka libintii guurkeyga libaax baaliqay shamaalayaa sheegan kara kibirkii beerta karfan saaray jaceelka 5 u yar ha ii sheegin markaan dhig kadib kala guurkii yimid ya riwaayad badan ah sameysay waxaan la socdaa adiga inaad ku dhalatay degmada Afgooye degmada Afgooye maxaa ka xasuusataa degmada Afgooye aan ku dhashay aniga tuulo oo kamid oo la yiraahdo Cumar Beere Afgooye 10 kiiloomitir ay u jirtaa waa meeshii aniga aan ku dhashay oo ku soo barbaaray oo laashinimada ka soo bilaabay waay marka tuulooyinka iyo beledka Afgooye dhaqan badan oo ay leeyihiin oo ugu weyn yahay shableyda ama istunka si loo yaqaan meeshaas aan ku soo barbaaray dugsi quraan meeshaan aan ku soo bartay adii kadib badaan oo waxaan soo dhaxgalay laashimiinta gabdhaha la amaanayo shiribka adin wax ka xasuusi idinka ma soo gaarin barigaas inta aan la gaarin istunka waxa jira gogol dhig habeenadii waa la soo duul habeenka jimcada ah wala soo raaraadsi jirmiya waa ma barbaar la soo baxa koob dhalinyarta soo bilaabayse
shirib ay soo bilaawayaan bismilow baab cilmi waaye laga boodo ma banaana ay soo dhahayaan waa la soo wareejinaa odayaasha iimaanay barbaartii oo dhan waa la soo raaca tuuligii kala loo duulaa marka anaga Cumar Beera deganay Buulalow iyo Labadoonki iyo loo duulaa meesha la tagaa habeenkii waa la shiraa maxaa lagu shiraa ninkii wax baran waayay ninkii beer daadaad oo sabuulka jabsadi ninkii dadow dhacay oo tuug noqday kulli waa lisgoomara si aan mar ay damba ay u dhicin waxaa dhacday degmada tuulada Buulalow nin dhalinyar waxa arday ahaa afgooyas iskoolka dhiga jiri iskoolka haduu afgooyo taga suuqiisa iska gal jiri ciyaaro iska galay ma barmo sanadkii waa ku dhacay imtixaanku waa ku dhacay markaas la noo sheegay habeenkii markaan tuuladooda tagnay hadoo gurigooda agtiis markii la tagi la foori feej waa la istaaji markaas laashinka waa la gabi waxaa la yiri baxsoo dhamaaba karoon bishuna fiyowaan baadidii bilka maqana biyo fadhiistaaye بالعارم فسقال جوكتا بيت نبي لسورايو بيت نبي نكي كودنتا بري واحوري ليراي لوسي أذا بروايسي بوكي لوسي أذا بروايسي بوكي لوسي أذا بروايسي هذا بيت كينا كبور بيت كينا كبور بجيلا لا أنت بيت كينا كبور بجيلا وحال يجير شهاد برياس شهاد ملينا بسومالي بجيلا دوكسي تلياني على برناي بجيلا بجيلا لا أنت بيت كينا كبور عليه غورغينا كوي أظن شهاد هاي سنين كورن هي ويلكي وحو سمي سناس وحي كدنبي وحو بلاوي دخدخاق علس أرضو بلاد أرضو إسكولك مكباق لإنسان كي كانوا برموس عنانت وفعلت الله ويكون فعلت نكي أسير إسلامتو إيدن أي مدينة اللي يراهو ذهب كيدي وحيغا على دعي هيا marka nin oo asna oo muunyo la yiraahdo meesha degan dusha laga saar mar iska tuug meen dusha laga saari haye markaas la yiri mukulaal madow iyo meefi meel mamooga maalka ay madiina muunya mu khonestiya la yiri magasti nin oo beledkii oo dhinacayna ahaa degmada oo baalguri la yiraahdo waxa watay gabar jeclaaday degmado rakhayl la yiraahdo gabarka jeclaaday hay raqayga rakhaylaha asigoo degmadii rakhayl joogo oo gabadhii gurigooda fadhiyo oo sheekaysanaa gabadhii aabaheeda ma aha walaalka istighfirullah walaalkeeda meesha soo galay haye walaalkeeda markuu soo galay ma ninka oo arkay ordab isday boodka bastoolana waa sita boodka ka boodi haye markaas la yiri sanadka dilgaari nin bastool haasto buunya ka baabay oo buunya ka baabay nin bastool haasto buunya ka baabay nin bastool haasto oo buunya ka baabay beerba khati waaya baal guro barbaarta beerba khati waali nin bastool oo wada maxaa ya markaas la yiri asne buunya li bastool loo ma beer dare buunya midile bastool dhan matura asa wiir asne wallahi billahi wal isku goomaari jiri wal isku goomaari jiri kadib alis ashableeda ay dhiceysi alistumay waxaan la soconaa gobolka Shabeellaha Hoose oo adi ku dhalatay meela kamida waxa looga hadlaa luqadda maaymaayga adi wali ma isku dayda hees maaymaay ma sameeyay hadaa sameeyay maxaa kamida ma noo sheegi kartaa aniga deegaanka aniga aan ku dhashay maay iyo maxaatir labadaba waa lagu hadlaa macallinkii quraanka bari maaymaaya ahaa ninka iimaankeena masjidka khadiibka maaymaaya ahaa ninka macallinkeyga hataa oo koow oo shiribka iyo bilaabi hataa maaya ku hadlaay marka hees maaymaaya waa sameeyay hees badan masmeel ahaa hees laba hees aan ka sameeyay mid hadda waxaa qaadi isheeg jidda sheekh bashiir oo soo manaa sababtaa soor ma aamaayo suuhay sakaraada ah sariirtaa fuule si ideer abow samoohoy soo manaa sababtaa soor ma aamaayo soo manaa sababtaa soor ma aamaayo suuhay sakaraada ah sariirtaa fuule suuhay sakaraada ah sariirta fuule saydir abu samoho
la'aanta soor ma aama kor waaya intii in koy teleefade ahey saas waay ha salaantii geegi suga in hayti sanbabka oo galay dhiiga oo suuro hayta la yiraa soo mana sababta soor ma aama suuhay sakaraada aas idir aboosamo intii koyu oo soorta ariitan aanta adiga naftaan khatarata saaro afka maayga waa taqaana ma siixana ama kugu heesaa maanta santa igu heesa runtii farxad weyn oo taa maanta inaan ma aragtay kula kulanno riwaayado badan ah sameysay ilaa 12 riwaayadood laashinimada markii aad soo galeysay ama abwaannimada ama fankaba koo maxaa ku soo gashay oo ku bilowday fanka saanku hadda kugu shay ani koo waxaan ka soo bilaabay shiribkaas oo markii oo dabshidka la gaaro oo istunkaas meeshaan ku soo bilaabay shiribka marka dib hadan waxaa dhacda anaga gobolka Shabeellada hoos ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ciyaar la yiraahdo walawalay ciyaartaas oo gabdhaha marka arooska la gaaro gabdhaha lagu guurinaa wiilka rabbi salli ala alxabiib muhammad wa ala alaali man hum hul kurma aluga gurigeena gabdhaha ku soo hirta ciyaar hidaha iyo dhaqan lagu guurinaa wala amaana dhulkeeda la amaana lo'dooda la amaana beertooda la amaana إذا لا أمانة وحال ليه قبرياي إذا سيما روب صوت داي سقالكو بيه سوري دول كسير مدو لغا ديغي سيغا إيا بورلا سحن سحا ودقون آجرتو سيادة هب كراح إستان قبري عدي سيدا سو كلاتاي ولا أمانة بيرتو مركل يراهو بدنا يبني بلعت يري بلعت وين ببورك بشار خبوب بلغ حاجي أبرونة لان تبابي حسن كولو بالو يبهات لو بولا محاكاريوي بيقلكي كايسني بيرتي أبكادا وايل اللي قرتس والله بلا سفيعنا وأمان جدين قرتس لو أمانة لا أركل لو أرواحو لا أركي وايل لو أوي uurkeeda cadiin ma laho sidii ubadka Soomaali afkeeda jili madow ilka joog sidii aadan iyo xaaba lagu amseelo way u badi iman ruumiya la dhahay gabdha si fiican oo amaan jirtay hadda sidii oo kale mu amaantiin hadda dhalinyarta soo baxday haliska moodo way ya dad waa dadkii hore la yiri waa dadkii hore hadalna waa hadalkii hore aad iyo aad waxaan u maleynayaa inay jirto hees uu qaado inkastoo uu diiday in ma aragtay heesihiisa la isticmaalo ama la dhageysto muxuu ahaa magaciisa awaas khamiis ma xasuusataa hay awaas khamiis asiga asoo shareera tumaayo oo luumbi timaayo kuwa ana hees u dhiibay heesta liraa shooba iyo shabla iyo ciyaar asi faaduma khaas isla qaadaan heesi u dhiibtay maxaa kamid ahaa awaas khamiis heesta koow oo ku soo baxay waxay kamid ahayd heesta liraa shooba iyo shabla iyo ciyaar sheekada marabe iga shiixay shibdhe asiga iyo faaduma khaasina Allah u naxariista isla qaada jireen riwaayada jaceelkii luul iyo leylay ku jirtay awaas heesta oo ku soo baxay heestaas waaye heesayga ninka ugu badan oo qaada jir awaas khamiisa kamid inkastoo Axmed Abubakar al-Amaadi oo qaaday Umar Nuur Baasharax oo qaaday faaduma khaasin luul jaylaani sitay qosol wanaag madiina Abdi Ali Allah u naxariista ay qaada jireen أحمد شريف كيلر أو خاذ الله ونحرسته لكن أبيسها أقول بدنا هيسيجا شموري وخاذ جري هيسيجا ورواية مرك لاك وحقول بدنا أبيس خميس هيسيجا واتا هدان حسوستي واحد جرتي هيس أبي عاشو وحنا نجح حسوسي كرتاتاس أبي عاشو وحوايا تولدي أم كل شيء أيكم مجعاب انتها أبي عاشو إدي عمر بيرة أم وجيدة أبي عاشو إدي أي تري قبلي وحالي حمرا لكاني ما يهتي أنا حمر مرة ومكون رحمة كروه. أنت يا مركب. عن ربا عمر بير ميل أو إس قبيب هواي وبي ومدوا ور أكتال أو بي حريت يحيل أكويال لقنا واجوكتا محل بيرتنا ماشي كتال. قبلي وحي برتي بيرتودي ماشي كتال لقضودين ماشي كحرنتها لقضي على صالسة عناس وحدي أفجوي جيني وسو يبنيسا هبنكي تولي بسو هو ينسا مركا حمر حرنانتا يو ديدي معنا يو وحس ماشي تقال مركا ولا شيء عاشو أتيري أنت ما اسم ما يتيري أبا عاشو إدي أنا عمر بيرة وجيدا أبا عاشو إدي ساسي كتيمي تصدق أبا عاشو إدي مركا عمر بيرة ربابا ماشي كل على توال أبا عاشو إدي أبا عاشو إدي مبيرة جيدا أبا عاشو جيدا أبا عاشو إدي
adigan meesha ku dhalatay miya cumar beeraan ku dhashay sanadkee ahayd waxaan dhashay 1948 ما شاء الله ولا دقوي والله أكل أكيد والله أكل وعلي هدي وقوله كداي وقول أم كدايرين نيتنا سومالي إلهي أنا جارسي ده بدنينا جارسي